Bismillah, alxamdulilah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mahadooran ilaahay bay u sugnaatay oo sanadkii tegay ee ka koobnaa 365 maalmood noogu soo dhameeyey caafimaad iyo kheyr. Qaarkeen ayaa laga yaabaa in sanadkii tegay ay la kulmeen dhacdooyin murugo leh, balse mar walba waa inaan xasuusanaa tiirka lixaad ee iimaanka ee ah inaan rumayno wixii nagu dhaco ee shar iyo kheyr ah intaba, oo aan ku qanacno wax walba oo Ilaahay noo qoray. Waxaan idinla wadaagi doonaa talooyin laga yaabay inay ku anfici doonaan si aad ugu biiriso tallaabooyinka aad qaadi doonto sanadka cusub ee 2022. Tallaabada ugu horreysa ama qodobka koowaad waa cibaadada. Cibaadada keliya maaha inaad 5 salaadood dukato 30 maalin ee Ramadaankan aad soonto. Haddii aad tahay qof dhalinyaro ah, hami sare leh, raba inuu hadafyadiisa ka rumeeyo, doonayo inuu meel sare oo wanaagsan gaaro adduun iyo aakhiraba, waxaa muhiim ku ah inaad xiriir dhow la leedahay Rabbi subxaanahu wa tacaala. Ilaahay waa midka wax kasta oo iskugu kaa xirxiran kuu fududayn kara. Sidaas darteed, Rabbigaaga la yeelo xiriir wanaagsan, salaadaha waqtigooda ku duko, la imaaw adkaarta iyo salliga Nebiga sallallahu calayhi wasallam si maalinle ah, si khushuuc leh u bari Rabbigaa oo waxaad rabto u weydiiso. Baxso sadaqo oo caawi kuwa danta yar. Qodobka labaad, maareynta waqtiga. Waqtiga waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan nolosha bani'aadamka, loona baahan yahay inuu si habboon uga faa'iidaysto. Dhalinyarada hadda intooda badan waa kuwo waqtigooda ku bixiyo baraha bulshada iyagoon wax ujeedo weyn ah ka lahayn isticmaalka baraha bulshada. Si aad si wanaagsan ugu maareyso waqtigaaga, mudnaan u samee howlahaaga maalinlaha ah sida cibaadada Alle, waxbarashada, shaqada iyo howlaha ganacsiga, daryeelka qoyskaaga, horumarinta xiriirka aad la leedahay bulshada, joogteynta jimicsiga iyo wixii la midka ah. Qodobka saddexaad, seexashada iyo kicidda goor hore. Waxyaabaha ugu daran oo ay dhib ku qabaan dhalinyarada waxaa ka mid ah in badankood aysan awoodin inay seexdaan goor hore oo ay soo kacaan goor hore. Waana arrin aad u daran run ahaantii. Waxaa habboon inaad hesho hurdo kugu filan si ay kaaga caawiso isku dheelitirka guud ahaan xaaladaada caafimaad. Haddii aad goor hore seexato, waxaad awoodi kartaa inaad goor hore soo kacdo, salaada subax aad isku diyaariso, masaajidka aad kusoo dukato haddii aad rag tahay, cibaadaysato, jimicsi aad samayso, kadibna aad si tartiib ah iskugu diyaariso howlahaaga maalinlaha ah haddii Ilaahay kuu qadaro. Qodobka afraad, samayso qorshayaal kadibna ku dhaqaaq inaad fuliso. Weligaa ma dareentay inaad u baahan tahay isbeddel, ama miyaad jeclaan lahayd inaad samaysid isbeddello muhiim ah oo noloshaada aad ku horumarinayso, sida barashada xirfado cusub, samaynta hal-abuur ganacsi, baadigoobka shaqo cusub iyo wixii la mid ah? Dabcan haa, balse ma ogtahay dad badan oo sidaadoo kale ah ayaa leh waxyaabo ay jecel yihiin oo ay rabaan inay iska beddelaan ama ay ku kordhiyaan noloshooda, waxayna samaystaan qorshayaal sanad kasta, laakiin nasiib xumo in badan oo ka mid ah ma sameeyaan isbeddello muuqdo oo la taaban karo, waxaana arrinkaas ugu wacan fulin la'aanta. Haddaba, inaad qorshayaal tiro badan aad buug ama meel gaar ah ku qorato keliya muhiim ma aha, waxa kale ee ugu muhiimsan waa fulinta qorshaha. Qodobka shanaad, beddel caadooyinkaaga xunxun haddii ay jiraan. Haddii aanad beddelin caadooyinkaaga xunxun, ugu dambeyn waxay kugu khasbi doonaan inaad la qabsato aad ka fursan weyso. Isku day inaad beddesho caadooyinkaaga xunxun ee sanadkii tegay. Caadooyinka xunxun waxay kaa hor istaagaan inaad gaarto hadafyadaada. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaad burburinaysaa caafimaadkaaga maskaxeed iyo midka jireed adigoon ka warqabin, waxaanad arkaysaa inaad waqti iyo xoog ku luminayso. Haddaba waa kuu muhiim inaad jebiso silsiladaha ku naafeeyey ee caadooyinka xunxun ah, kuna beddesho caadooyin wanaagsan. Qodobka lixaad, aamin naftaada, Ilaahayna tala saaro. Aaminaadda nafta waa shay lama taabtaan ah. Si kastoo aad tahay, wax kastoo aad haysato, iyo xaalad kastoo aad ku sugan tahay, waa inaad jeclaataa oo aad aamintaa naftaada. Aamin inaad xaqiijin karto hadafyadaada. Aamin inaad awooddo inaad samayn karto wax aad damacdo oo wanaag ah. Haddii aanad aaminintaa, wax badan ma gaari doontid. Talo saarashada Rabbina waa laga maarmaan mar walba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.